وين أي تاي دستور كان هذا واحد من كراكس بدن إنه كياني جودي سادنا شو عنه حتى مركي اللي يسوي ميد أو برلمان إنه سوى حق له إنه شقة قريب وهي هرتا سيد كواب بونه واحد ضد بروفيشنال ويقارنا واللي يذكر أحسن هاي integrity هذا أقوانته هذا اللي يسلو يقولها إني قاعد كريان وهاجا كان نقدان وهاجا تيان كبعدنا السياسيين لوجه الشيء مركز السياسيين لوجه الشيء برلمان كلاكين برلمان وكوجتو شقديس برلمان كشقد وكجودان لها لبدي برلمان اللي سكيني لبدي أقل اللي سكيني هي لفتي هذا إن هبراع الجود دورنا واد وجيد مدحوينا فرماج أسيك هذا اللي هبراع وجوري اللي سميني سيس حلو ما قاعد بركاته ومحمد ربي يرتو maan ku soo hadlay magaalada London waxa maanta ii soo gashay in London kulmo injineer Abdullahi Abdul Qadir Faataxo oo hore ahaa musharax dawladda Puntland injineer Sodwo waan dhawahay ma sha Allah adiga iyo dadkaaga kugu xiran channelkaaga ku xiran aad baan soo dhaweynayaa injineer waxaan ognahay bisha 4 Maarso oo shalay ahayd waxa soo gabagabeeyay dastuurka dowladda federaalka Soomaaliya maxay kula tahay بسم الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم دستور marka ugu horeysa horta waa marka aan fiirino kelmadda leeyahay dastuur ama constitution ama magacyo badan oo luqadaadka kala duwan leeyahay waa heshiis bulsho bulshada dhamaanteed waa wax ay ku kulansan tahay dastuurka Soomaaliya wuxuu soo maray maraaxil kala duwan wuxuu soo maray inuu charter noqdo heshiis yar noqdo ka bacdi dastuurka loo bedelo 2012kii 820 maqameelaha odayaal ay Muqdisho ku ansixiyaan oo asagoo ku meel gaara halkaas ka soo ambaqaaday marka laakiin waxa shalay wixii dhacay waxa bulshadu qayba aragti bay kala hayd meelo badan waa la isaga haystay laakiin wuxuu at least noqonaya chapter soo xirmay oo ah in la leeyahay dastuur baa la ansixiyay maxaa ay waxyaalaha la isku haystay iyo meelaha ay wax ka imaanayaan dastuurka madaxweyne kasta oo yimaada ama markii musharax madaxweynaha uu yahay wuxuu ballan qaadayay inuu dastuurka dhameynayo inuu dhameeyana waxa waa shaqooyinka u taala madaxweynaha laakiin waxa la rabaa dastuurku way iyo qaabka loo dhameynayo dastuurka gudihiisa way ku qornayd guidance uu leeyahay waxa la isku hayaa oo in badan oo bulshada ka mid ah Soomaalida gudaha iyo banaankaba ee deegaano badan ay u gadoodsan yihiin waa in aan la raacin habraaci lagu talagalay in lagu gabagabeeyo oo lagu dhameeyo qaabkii loo mari lahaa marka wasiiladu ay khaldan tahay meesha la tagayna way khaldan tahay marka wax khalad ku socday ayaa shalay soo gabagaboobay in badan oo bulshada ka mid ah oo anigu aan aaminsanahay ku jiro ma aha in la gabagabeeyo oo la soo dhameeyo dastuurku hagaago nin diidan ma leh laakiin maadaama dastuurku xeerar iyo nidaamyo iyo waxyaalo ku qabanaya iyo awoodo iyo u kala saarayo waa in bulshada loo soo bandhigaa si wadar ogola siyaasiyiin ay maamul goboleedyadu ay ka heshiyaan sida ku qorna habraaca loogu talagalay dastuurka laftiisa asaga sharaxay in badan gudihiisa isku sharaxay markii ugu horeysay maxaa intaan loo reebay because waxa loo arkay waqtiga ka gaaban iyo inaan lagu heshiinin ay u baahan tahay maamul goboleedyada in la sameeyo maamul goboleedyaduna ay ka heshiyaan taas ay ahayd waxa dhacday guidance-gii baa laga leexday maadaama guidance-gii wadadii hagihii laga leexday oo waxay u ekaatay wax madaxweynaha hadda jooga madaxweyne Xasan uu doonayo inuu asagu legacy ama calaamad uu ku dhameystiro u yahay laakiin
wadada maraya kama fakirin wadada maraya oo iyo waxa ka muhiimsan ishaynta ummadda waxa jirtay xilligii dagaalada hadaan in yar ka soo dhexgeliyo waxa jiray xilligii islaamka dagaalka crusade-ka ama dagaalka dadka kristaanka iyo islaamka ay dirirayeen waa mar waxa la isku qabsaday aqimka iyo sida loo aqimay la isku qabtay ma laba laga dhigay ama saddex wixii markay dadku isku qabteen wuxuu yiri isku haysigeen wada jirkeena ka weyn aqimka nooga bilaabo hadii adinka isku haysataan aqimka ka bilaabo muhiim waxa dadka bulshada madaxweynaha waxa loo dhaariyo oo ugu weynaa inuu bulshada isku hayo in bulshada uu kala geeyo oo ay noqoto bulshadu meel wax lagu kala kaco taas ayaa dhibaatada ugu taabana waxay keenaysaa in aan maadaama aan si sax loo qaadan wadada idil waxay noqonaysaa khalad waxay noqotay wax aad u maleysay madaxweyne xasan iyo inta ku hereersanay inay ordinayaan oo binaari macnaha wado dheeraysa ay saareen xoog ay lacag iyo dhaqaale iyo guriyo iyo magaciis iyo baa lagu bixinayaa leeyahay mana u baahna maadaama wuxuu yahay heshiis bulsho wala aniga adigu aan heshiisno maxaan ku heshiinayna tan aan ku heshiino maxay kula tahay tan maxay kala tahay in la yiraahdo hadda lagu heshiin hadda anigu waxaan aaminsanahay in meel akiran u marayo hadda من دستور كجبجي السبب مالتي مدحوين حسن ميشو جارسين كري وجارسي وادمي ميل بوديجي أول واحد الوجه سنين سجال قضبة هاي هذا بقولي أفرتن تدبدا قضبة بنان كي تاجن تيسوت حواي ماشي ربي إنه لما يسترو دستور عصب سيدو قرأ إيو كريتا أيو إبر كسو بلعب مركا واحد وقرأ إذا الواحد وقتها واحد اللي يذكر سنين لبا بمن نغنيسا إن bulshadu ay maxaa ka khaldan gudihiisa ay ku dhex shaqayso oo aragtidaas ay timaado wixii ninkii sameeyay waalay lacag ku bixi wuxuu aysan ahayn xeerar buu sameeyay xeerarka maxaa ka khaldan oo laga dhex saaro wixii khaldan waa mid oo aan taasi aysan dhumin dhaqaalihii iyo resourcigii iyo aqliyadii iyo wixii la geliyay aysan dhumin midna waxa waaye ugu weyn hadda taaganba war asaga xagga naga dhig maadaama aan la isku baraxsanayn qaabka aad u samaysay mid baa la yaqaanay meel buu noo mariyay sagaal cutub baa la yaqaanay kaliya dhibanayd oo sagaal qodob oo yar yar oo resourciga iyo sidee looga heshiiyaa iyo ay ahayd Kenya anka hadda habal la gaar madaxweynaha ku xiga hadda maystire hadda waxa loo baahan yahay oo kaliya sidee dooro laba bilood baa ku dhimane doorasho loo galaa dastuurku waa inuu soo shansan dastuurka waxa la yaab kale oo qosolka ah waxa way dastuurkan hadda waxa ku qoran wasiirku xildhibaan ma noqon karo xildhibaanku wasiir ma noqon karo taas haddana waxa qolada noo joogtaana kulligood waa wada xildhibaano laba jeer ma qaadan karo so inay joogooyinkaas daadiyaan oo dawlad cusub la keeno ama xildhibaano cusub la keeno which xildhibaanaduna ay ka dhacayso dhawaan waqtigooda tan kale waxa ku qoran dastuurku wuxuu dhaqan galayaa maalinta oo bilowd la saxiixo okay geesta kale dastuurka gudihiisa waxa ku qoran dastuurkan wuxuu noqonayaa facaal oo shaqeynaya marka wadanka midnimadiisa la koobo oo Soomaaliland iyo arrimaha u dhaxeeya Soomaalida inteeda kaleeto la hagaajiyo so money crashes baa gudihiisa oo isdiidooyina madaxweyne xasan haduu yiraahdo oo aniga hadda sanad baa ii dhiman oo dastuurkii waan saxiixay maadaama which is aysan jirin qofka mandate baa la siiyay ummadda Soomaaliyeed iyo dadkii dooranayay iyo xildhibaanada iyo baarlamaanku waqti bay siiyeen waqtigiisa markuu qaato waxa kaliya laga rabaa inuu dawlad kale ay keen ama dawladda loogu daro oo dawladdu ay qaadato waqti ku darisa oo ah doorasho ay ku timaado dawlad cusub ay noo dhalato dawladda cusub meeshu madaxweynuhu ka keeni lahaa muxuu keenay waxa hadda socota 5 sano doorasho maadaama dastuurkan saxiix ana isugu daray ba meeshu 5 sano isaga daray 25 sano oo isugu dari karo wuxuu oran karay dawladda dastuurkan wuxuu sheegayaa 25 sano qof walba waa jecel yahay bini aadamku wuxuu jecel yahay hanti wuxuu jecel yahay waaritaan
nolosha intuu raba inuu joogo xil hayo soo uu oran karay meeshu 5 sano kaga qoray 25 macnaheedu waxa waaye normal dastuuradu back dated ma sameeyaan oo qofka jooga self interestigiisa kagama shaqeyn karo waa in dawladda waxay la wada deganay waa ciyaar cusub la ciyaari doono ciyaari doono xeerkeeda 2 iyo 3 baa 3 gool baa lagu kala badanyahay ama 2 gool baa lagu kala badanyahay hadaa tirahdid ma oran karta ciyaar lagu dhex jiro oo xeerkeeda la gooyay waa lagu daray tani igu badisaa marka waxa ka muuqata tani igu badisaa ana marka isdiidooyinka ciidda ka badan waxa arkaysa waxyaalaha cajiibka ah oo ma ogtahay hal daqiiqad ayaa noloshaada bedeli karta marka xaalad degdeg ah ay timaado hallumin waqti ha raadin meel kale emergency siman hospital waa ku diyaar 24 saac dhaqaatiir khibrad leh qalab casri ah daryeel naxariis iyo xirfad bal leh siman hospital halka nolosha lagu badbaadiyo wac hadda 2497 xildhibaanadii hana seexanin hana joogin hana jiifin hana istaagin la yiri gurigooda ayaga oo socdo laga soo celiyo consultation doonanaya waa lagu diri karay maalmo inay wadanku inta tagaan deegaankooda la soo shiraan ay soo laabtaan ama laga soo dhaadhiciyo ama la iska daayo inta la soo celiyo in xalana lagu xirto waxay ahayd dib oo aeroboorka oo maalintii dastuurka la ansixiyay la yiraahdo hadda fasaxantii maxay siyaadinaysaa marka halka waxa ka muuqata isdiidooyin ciidda ka badan marka waxa dastuurka anigu marka aan umuumin soo khulaaseeyo waxaan u arkaa in wax wanaagsan oo in la qabta ay ahayd laakiin wada khaldan maadaama loo khalday anaga Machiavelli sharcigiisa Machiavelli waxa waaye wuxuu leeyahay wadadu waxay justify garaysaa hadafka laakiin anaga muslimiin maadaama wadada iyo hadafka labadaba in aan wada fiirino waayo hadaf khaldan wada khaldan hadaf sax ma noo keeni karto هذا بالدستور كذب سومالي حقه وجهه دامقس niyo dastuurkii maanta shalay waa dhamaaday hadalladeedii waa la jeediyay dadku ka hadli karay waa ka hadleen maanta waa maalin kale maanta waxa kaliya tahay dirbaanka ninka garaacay meeshu ku tumi lahaa la rabaa dastuurku meeshu ka dhaqan gali lahaa xoreyntii waa loo baahan yahay heshiisiintii maamul goboleedyada iyo maamulada inay aqbalaan waa loo baahan yahay tii Soomaaliland waa taala labadii bilood oo doorashadayna way taala marka waxa ugu weyn oo hadda madaxweyne xasan uu yaala waxaan qiyaasayaa inuu yahay sidee baa ummadda Soomaaliya aad isugu ururisa oo doorasho la wada ogol yahay u samaysaa ana taas ila muuqata hadda bad mucaaradka mgeela waas khasab in la heshiiyo lagu khasbay ama dastuurkan lagu heshiiyo ama sharci ka madax banaan lagu heshiiyo ama kii 12 ka lagu heshiiyo in la heshiisku waa khasab sababta wax kale oo noo furan male in la heshiiyo waa lagu khasbay marka tan kale tan waxa waaye de international community ayaa waxaan dacmiya oo kor Soomaaliya ka ilaaliya hadii saysidka iyo magciiska iyo mashaakilkooda xilligan hadana abaaro caalamku ka sii jeedo dagaalada ay jiraan dhaqaale xumo ay jirto lagu sii socdo waxa laga yaabaa in dadku ay daalaan caalamku inaga daalo aad loo ka daalo marka anigu waxaan ummadda Soomaaliyeed ay intooda wax garanayaan kula talin lahaa in nin waliba maskaxdiisa oo open minded ah in heshiis ugu soo dhawaado dastuurka ayadoon ba lagu mashaakilin si doorasho isugu dhiiba ama madaxweyne xasan soo laabto oo dastuurkiisa hadhowto si fiican ha u dhameystiro ha u hagaagsado ama madaxweyne kale ha la hele in hal kaliya ayaan ku amaaneyn afrikana kaga fiicnay waa isu dhiibida teeramka inta la helo هذا بحاجة محل يسوي حق قرن مذهبين من نقل قرن لو قر الخوف كليسا ما هل مر سحرتي بس كله أيضا لفتي قد واحد وايد الشرع قال نينك كترجمي لها مشو واحد وايد دستوري هيدا محكمة دستورك ما نورسنا وإن مرت لقيت ترجمة مركا ترجمة ده سواء ما consecutive terms با ما لبا قرب مدحوين أو سنقانين مدحوين حسن ما بس صوش الحكرة
taas waxa waaye dastuurkii hadda la cuskanaya in badan waxa waaye Puntland iyo Jubbaland iyo waxay taagan yihiin maba nala ku dhaqayo oo kii 12ka baanu anagu aadayna marka gribiskaas tirada badan inta laga soo dhaco ummadana loo daneeyo madaxweyne xasan isaga waxa mas'uuliyadda ugu weyn ay saaran tahay oo ah inuu ummadan isku hayo tan kaleeto oo farmaajo uu sheegayana waa dhab oo ahaa madaxweyne farmaajo uu lahaa shalay hadda awood leedahay inta aad mandate ku shaqeynay inta aad xilliga dawladda dadku ay ku siiyeen aad haysatid awood baad leedahay isu keenid baad leedahay maqal baad leedahay ixtiraamkii baad leedahay maalinta ay dhamaato madaxweynihii hore tahay caalamku waxa waaye sidii kaagama heebaysanayo Soomaalidu sidii kaagama waxa imaanaysa kii ku dhawaa inuu ka fogaado because wuxuu kuugu dhawaaba maqan marka in aqriga soo laabto oo xilligaas uu odayeyn karo uu si fiican u odayeeyo hadaba engineer adiga maxaa maadaama aad ka mid tahay falaqeynta siyaasadda Soomaaliya aad ka soo qayb gashay maxtaa doorashada Puntland maxaa hadda aad ku haboon maxaa soo jeedi lahayd say ku tahay aniga in doorasho sidii ugu haboon doorashada dadban waa la mahal laha macnaha in doorashada dadban la aadayo lagama walwal qabo isku haynta Soomaaliya waxa waaye dastuurkan meel iska dhigo kan dambe madaxweynaha dambe hadii la fiicnaato iyo hadii la qurux badnaataba maadaama uu madaxweynaha saxiix baarlamaanka uu maray hadii inta diidani ay ogolaato dastuur buu noqonaya hadii ay diido buuq baa ka jiray marka la sameeyay waxay noqonaysaa marka madaxweynaha ka dambeeya iyo isku xiridkiisa bay u taala laakiin tan ugu muhiimsan oo muhiimadu ay leedahay xilligan turbulensiga xilligan buuq ah sidee looga baxaa oo doorasho loo aada doorashadan waxa lagu aadi karaa waa in la isla ogolaado mid marka madaxweynuhu ku soo dhawaado odayeeyo dadka isugu yeero uusan maartay hadba geed fuulin ma shalay wuxuu ayri shalay markii la joogay uu diiday dastuurku rabay inuu dhameeyo waa dhameeyay boy ka bacdi waxa imaan waxa dhacay in wali lagu soo yeeyo milkii baa la rabaa ninka Sheekh Shariif wuxuu rabaa madaxweynuhu rabaa dani wuxuu rabaa madaxweynuhu noqdo rabaa qofkii madaxweynuhu khayr madaxweynuhu rabaa nimankaas u diyaarsan maanta madaxweynenimada wax kale oo aad ku qancin kartid mar inaad keentid kursiga xeerkii lagu tartami lahaa oo obin oo ka dhaxeeyo ay ku wada qanacsan yihiin annaguna ninkii aan markaa musharax ahayn shacab u yahay wuxuu sugayaa doorasho qurux badan oo nin walba ninku danaynayo inuu taageero ka bacdina qof soo baxo taasana sharaf isaga ugu jirta inuu si sharaf leh sida ayaanta hore u dhiibay isagana loogu dhiibay inuu si u dhiibo wadanku is haysta wada jira qorxoon hadii dastuurkiisa madaxweynaha ka dambeeya ama isaguba uu qaado isagu noqon kara madaxweynaha ka dambeeya madaxweynaha kalena uu noqon kara madaxweynahaas hadii si wado waa u sharaf hadii la yiri maxalla madaxweyne loo goor maran karo loo goor isku xigta sumiya ama sabay way kala furtaan taas hadda isaga dadka musharaxiinta ay kuma haystaan ma sharxi kartid min ku haysta wali ma maqal madaxweyne xasan oo isma sharxi kartid calafkiisu qaadanaya أنا وحنا أمسناهي مدحوين حسن وحوا أنتوا عقلكيس كباستيكيس عافماتكيس أوديس وشقين كر أمضة إنه شقينه إن الحديد أنا ما بقى أنا معناها حديدات لبعض يصدق ما بقى أمسن ودمضوا إنه نكون إن بدن شوق إنه يير شوق أنا ما كرت جاهل وحنا محوق قبنا يا واي دتكم أقولين واي ما يسقون كراواي تأيم قطعات واي لكن إن وحيل لو نك قرن اللي هذا حلبان بقى قريب بقول هذا وحي كودين كودقين waxaa la rabaa wixii la dhigtay in la isku dhaqo waxa weeyaa kaas waxa injineer Cabdullaahi Cabdulqaadir Faataxo aan ku wareystay in dastuurka oo la ansaxiyay maalintii shalay ee 4 Maarso 2026 wareysan waxa qaadan Maxamed Roberto